بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo dakhil gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda bacdu salaan cidda nabada Soomaaliya caada wada taalo oo coodka baadiyaha iyo beledku ceegaago oo nabadda lagu ciidayay niman caroodeena markaas ay colaad maamuleen cudurna beereen carrado dhan bay saabato waaba la iscuna cuqubada ninkii keenay baa lagu ciqaabay inaad noo caro marrabo ka codsanaynaa waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo dakhilba inaan la wadaago waxaan ayada u dhaqanahayn diinteedu aynan ogolayn mushkiladaha ka soconaya gobolada Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose degmada Kismaayo iyo deegaamo hoos imaado Soomaali waligeed waana isdilaysa waana isdaweynaysay laakiin dhaqan iyo xeer bay lahayd xeerka Soomaalidu ay lahayd waxay ahayd saddexda duub kale iyo sabiga saqiirka ah iyo soo joogaaga cirrada lama dili jirin Soomaaliyeey gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo deegaamada hoos imaado habeenkii marka ay tahay ciyaalka saqiirka ah ee hooyadu ay nuujinaysa ama ay xambaarsan tahay waa la baarayaa haddii uu labood noqdo ama wiil noqdo waa la dilayaa gabadhuna waa nasiibkeeda waxaa la dilayaa culimada diinta islaamka oo dugsiyada quraanka oo duubka diineed sidato waxaa la dilayaa dumarka hooyada ah oo sawjada ah oo waxa weeye khayraadka noo dhaxeeyo oo noo dhashay nala dhalatay waxaa la dilayaa odayaasha dhaqanka oo duub kale waxaa la zuulinayaa dhaqankiina oo waxa weeye aad lahaydeen sharaf ka lahaa waxa soconayana waxa wada dawladda Kenya iyo kooxdii hoos joogayaasha u ahayd waxaa nasiib darro ah dhowr iyo 16 sano 20 sano ka bacdi maxamed warsame darwiish oo ciidamada ajnabi ah wata reero Soomaaliyeed oo seexday oo nabad u seexday inuu habeenkii inta ciidama galiyo saqiir gowrac ka sameeyo annagoo garanayna 2006 2007 2008 waxa uu ka sameeyay Muqdisho iyo labada shabeelle iyo Baay iyo Bakool darwiish uu ka sameeyay waxa wiil Soomaaliyeed oo Tigray u dhibay ama dilay ama sixin u dilay annagoo garanayno maanta inuu wiilal Soomaaliyeed ciidi xorta ay ku leynayaan asagoo Kenya u adeegaya waa nasiib darro waxaa nasiib darro ah reero Soomaaliyeed oo sharaf leh walaalaha wada dhashay oo gabdha iska qabo dhulka wada degan oo ciida wada leh oo ay ka badan tahay in xukun oo qaybi dawladda cawaanka ee Nairobi degan intay u samayso waxa weeye islaaya la yiraahdo qoryo la isugu dhiibay ayaduna waa nasiib darro waxaan baaq u dirayaa culimada islaamka ee sharafka leh Soomaaliyeed oo diinta islaamka xambaarsan dibad iyo dakhilba waxaan baaq u dirayaa odayaasha dhaqanka oo duub kale oo la doortay waxaan baaq u dirayaa ururada hooyooyinka waxaan baaq u dirayaa dhaqaatiirta caafimaadka ayadoo maanta wixii mucjisada ahaa oo islaamku ku tusaale qaadan lahaa gaaradan ciqaabta u ahayd adduunku ay yaalaan oo waxaan aqoonin iyo coronavirus iyo cudurro dhibaato ah dalkeena uu ka jiro in maanta xamaaliinta Kenya qabaa'ilo intay noo abaabusho wiilal qoryo loo dhiibay la isku laayaha laga hortago waxaan leeyahay meeshaas waxay u baahan yihiin gurmad daawo oo degdeg ah waxay u baahan tahay gurmad dacwo oo degdeg ah odayaasha dhaqanka iyo culimada diinta islaamku inay waxa weeye ay dadkaas wacdiso u muxaadarayso waxay u baahan tahay aragti dheer oo dawli ah iyo mid dadnimo iyo mid diimeedba in lagu eego joogitaanka ciidamada Kenya dalka ku soo duulay iyo adeegayaasha u shaqeynayo Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ayadoo xilligan la joogo kulaylaha ah oo dalku uusan isu safar ka jirin oo dibaddana looga soo safri karin gudahana laga safri karin dhibaatada halka ka jirta magaalada Kismaayo joogto dibad iyo gudaba ilgaara in lagu eego dadka dhaawaca oo magaalada Kismaayo in la soo galiyo la diiday oo Kenyaanka iyo ragga u shaqeeya ay banaanka ku horeeyaan oo dhiig baxayo loo gurmado dawo la gaarsiiyo Soomaaliyeed baaqaas baan idin dirayaa ma aha wax laga aamusi karo waxa weeye ma aha wax la sii fiirsan karo Soomaaliya ay ku noolaan karto wadankeedii iyo sharafkeedu ay ku haysan karto waa qodobka labaad waxaan doonayaa arrin kale oo ayada garab taalo oo adeegayaasha Kenyaanku ay wadaan inaan halkan kaga hadlo arrintaas waxay ka taagan tahay gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo Soomaaliyeed
degmada balad xaawo iyo degmada doolow waa 40 kilomitir labada degmo way si soo dhaxgaleen dhismihii doolowna balad xaawo galay kii balad xaawona doolow uu galay lama heli karayo 1 kilomitir kunti laabo banaan aeroport baa ku yaala doolow iyo balad xaawo dhexdooda waa xor balad xaawo iyo luuq waa xor balad xaawo iyo doolow iyo luuq waa xor luuqna aeroport baa ku yaala doolowna aeroport baa ku yaalo shacabkaas oo in badan dawladda Kenya ee duulaankeeda si wada jira gacmaha isaga kaashanayay markay dawladoodu gaartay oo amni iyo nabadgelyo ay heleen Kenya waxay soo adeegsatay adeegayaasheeda kuwii ugu xumaa kuwaas oo ilaa 9 saldhigoodu Nairobi oo ahaa dekada Bambaasa raashin dhacay oo samafal lagu sheego gaalada dadkeena ay ku sumeynaysa ka keeni jiray dadkaasna maskaxda si ganacsi ah iyo si samafal ah been aba uga haysan jiray tilmaama markaan bixiyo waa nimankii shamuureyda dhacdo mutrafiishka ah isugu kaanalayay 99kii 98 ilaa 2000 oo magacyada lahaayoo hay'ada ku sheega qandaraasyada ka qaadan jiray waa nimankii taangiyaasha iyo cagafyada Kenya ay Mandera iyo balad xaawo dhexdooda labada ceel waq dhexdooda inay ku qodo ay damacday Bambaasa ka soo dajiyay oo qandaraaska ku qaatay waa nimanka caruurtanada hadda geed weyne iyo shaatoolow iyo meesha la yiraahdo banaanay iyo balad xaawo iyo tuulooyinka ka aruurinayo Mandera saldhiga uu yahay kuwaasoo ka soo horjooda dawladnimada in dadka uu gaaro oo doonayo inay ayagu qandaraasyo ku qaataan dadka kala xirxirnaantiisa sambal ay ka dhigaan balad xaawo reer gaar ah leh doolow reer gaar ah leh luuq reer gaar ah leh dadku inuu kala xirxirnaado kuwa la argagixisay shabaabka oo afka duuban oo khawaarijta ay duurka ku jiraan qarx iyo minadu ay socoto ujoodkoodu uu yahay waxaan baaq u dirayaa dawladda Soomaaliyeed talana waa ka dambaysiinaya waxaan leeyahay ogow qaranka kanugo abaalkii ma garatida hadba kii gambinayaad gacan saar la leedahay waxaan aad uga xumahay fariintaydan waxay ku wajahantaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha fulinta waxaan aad uga xumahay nimankii Mandera jamhadda ku aruurinayay madaxtooyada in la idinkugu keeno oo qandaraasyo la siiyo dadka ay qaybiyaan aad baan uga xumahay dad Soomaaliyeed oo shacab ah oo kulaylahan joogan caafimaad haysan oo banaanka shabaab u joogo xaqana Kenyaanka u taagan yahay guryo ay leeyihiin iyo boosas ay leeyihiin in la yiraahdo aeroport baa laga dhisayaa oo dadkii la qaybiyo qabiil xilligan la isugu horkeena ama deegaan waa nimankii inta shamuureyda keena kastanka Mandera ama xuduud beenaadka reer hebel raashinkooda waa la hor taagan yahay dhigi jiray oo qayaadada dadka ku leeyin jiray waa la garanayaa Cali Nuur Dr. Xasan Ugaas Shirag Gooni hebel waxaan ka gaarnamaha ilaa 95 ilaa xilliga nimanka qabiilka noo qaybanayay oo Bambaasa raashinka dhacay ka soo dajin jiray in ay xilligan dawladnimadii ka hor imaadaan Mandera iyo Banyoleyna ay wiilal kuwaana ku ururinayaan oo Kenya iyo Hura Kenya ta ugu adeegayaan aad baan uga xumahay laga digtoonaado marka aynu la sheekaysanay aqoon-yahanada dadka waxa weeye mujtamaca jacaylkooda markaan ka turjunno shacabka ah dadku waxay rabaan dib u dhis dib u xoreyn argagixisada oo laga xoreeyo aeroportka doolow iyo balad xaawo saacad wax ka yar buu baabuurku isaga socdaa aeroportka doolow in caalami looga dhigo migrationkii balad xaawo la furo iyo waxa weeye laamihii socdaalka la furo amni la helo shacabka aan awoodiisa looga faa'iideysta rabitaanka dawliga ah laakiin shacabka in la yiraahdo amar baa madaxtooye ka soo baxay intaasoo qoys boosaskii ay lahaayeen iyo guryaha ay deganaayeen amar dikireeta madaxweynaha wadanaa waa la duminayaa reer hebel deegaan uma ho meel heblaayo jiraan waa wax loogu adeegaya cadowga waa wax dhaqankeeda lagu yaqaan nimanka qandaraaska ku soo qaatay degmada balad xaawo qodobka waxa ku darayaa oo kale meel hadii aeroport looga baahdo in laga dhisayo ay noqoto waa in istiraatiijiyada dhulka la eego marxalad maanta kala badan meel 400 oo tilaabo u jirto seerkii NFD oo madaafiicdu goobta oo Kenya oo anaga nagu soo foorota ay saaran tahay dadkii deganaaba laga barakicinayaa waana dikireeta dawladeed in la yiraahdo dawladii iyo shacabkii gobolka Gedo oo u oomana dawladnimada oo ciidanka gaala iyo caanaha iyo biyaha iyo xogta iyo wax walba la garab taagnaa waa la iska hor keenay
waxaana iska hor keenay niman madaxtooyada Nairobi laga xukumo oo u adeegayo laakiin u dhashay dhulka waxaan leeyahay mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare wasiirka duulista cid kasto ay khusaysa waxaan leeyahay waxa Kismaayo ka socdo bedelkoodii abalad xaw laga abaabulaya waxa la dhabar jabinaya difaaci iyo dib ula soo noqoshadii xuduudaha waxa la dhabar jabinaya iswadashadii iyo sharafkii iyo ciizigii dawladnimo nimanka dhabar jabinayana madaxtooyada la idinku soo galiyay arintaas hal laga digtoonaado dadka aeroboor waa haystaan wadooyinka ha loo dhiso biyay rabaan caafimaad bay rabaan argagixisada gadoon dhawo iyo qadiijo xaaji iyo caracasa iyo shabeel duulaafa fadhido in wadooyinka loo furay rabaan in argagixisada ciidan loo abuuro dawladii lambar lagu dhajiyo oo shacabkii waxa weeye deegaan iyo reer loo qaybiyo war waa digtooni dheer waa waxaan ognahay waxay ila tahay si hoos dadaan ugu sheegnayna waa jiraan inaan saxaafada marinana saasaan ugu kaliftay waxaan leeyahay shacabka reer Buulaxaawo masiibada waqtiga ayada oo macallin ah ama shacabka reegado markii taangiga dhinacana cagafka ka dhinacana tawreedka kale aad dhagax kula dagaalameyseen diyaaraduna kor idinka duqeynayeen nimankii hoteelada Nairobi fadhiyay oo Axmed Madoobe qandaraaska uu saxiixayay oo taangiyaasha dhulka lagu qodahay Bambaasa ka soo dajinayay inay maanta qabiil idinku beer jileecsadaan oo wixii ay soo mareen sagaashameeyada aad ogtiin oo xayta iyo xiiran ciidiini adinkoo degan Tigray inta la soo raacay wiilashiina la isku leeynayay waxay la tahay waa is ognahay ilbaxbaad ka tihiin waxay la tahay inagu firan yahay dhulkeena aan wada jiro difaacano waxba yaan la idin qaybin waxa aan idin kaga digayaa waxa fool xumada ah oo dambi ma ogi aan xasanaad lahayn markale waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waxa idin furan wixii su'aalaad ah adiga weydiin lahaydeen waxyaabaha socdo oo kuwa la abaabulayo digniintooda iyo kuwa hadda taagan oo dhacda ka daba tagooda baan uga baaqayna dadka